شكر عبد الله حاشي وهو الصوماليات وكنا لد مجالة عاصمة مقدشة مرقرة أي براه برشة قصة موقتي أو سئادة أو قبضتي أيضا أجرد ليسه جبر دائرة أو سجال سنة جرت لقونا مجعابه سهر عبد الله محمد وحل الشيء إن جبر داسي أيوه هديده أبهد وقبي بلساي كلا تجين ورق قار أو حسين هرنا أيا وحي شيء إن sababta keentay shukri inay disho gabadhaasi eedada oo ahayd ay ku kaliftay cabitaan ay qasatay in gabadhaasi yar ay rabtay in ay cabto balse ay ku qaylisay naxdinta ay ka naxday darteed ayaa cabitaankii waxa uu ku qubtay dhulka waxaana shukri ay markii dambe ku kacday falka jirdilka ahaa oo jirdil xun ayay u geysatay gabadha jirkeedana waxa ka muuqday dhaawacyo hore sida ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay sheegeen howlgal ay sameeyeen ayana ku soo qabteen Shukri Cabdullaahi Xaashi oo halkan oo ah xarunta dambi baarista CID ee magaalada Muqdisho ayaa markaasi lagu soo xiray waxaana sidoo kale ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay sheegeen in gabadha jirkeedu ka muuqdo nabaro xoogan oo bogsaday oo hore eedada ay ugu geysay sidoo kale afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo warfidiyeenka la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in la xisaabtami doono Shukri isla markaana cadaaladda la waafajin doono shalay 24 September 2022 waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaal lagu faafiyay kaas oo qof dumar ah oo eedaysana ah isla markaana si arxan darro ah oo foolxumo bahalnimo ah u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo saqiir ah gabadhan yar oo saqiirka ah muuqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed kula xiriiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga booliiska Dayniile iyo hoggaanka baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leenahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in naloo qabto eedaysanaha isla markaana lagu soo simo hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da eedaysanahan garabkayga taagan oo lagu magacaabo Shukri Cabdullaahi Xaashi ina hooyo Cabdullaahi Xasan Kaariye waa qofta dumar ahaa eedaysanaha ah oo aad daawanayseen iyada oo jirdilaysa gabadhan yar oo saqiirka ah isla markaana ku faafay baraha bulshada baarista hordhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa noo cadeynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunuga yar oo saqiirka isla markaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shalay kaliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata farka jirdilka oo loo geystay dhibana sahra oo gabadhan yartaada ayadana garabkayga bidix taagan waxa ka dhaxeeya dhibanaha aabaheed ayaa horay u qabay oo ay xaas u ahayd Shukri eedaysanuhu waxay eedo u tahay Shukri inkastoo hadda aabaheed uusan qabin Faaduma Cabduqaadir TV-ga dalsan xarunta CID-da Muqdisho